الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. بسم الله. waxaan ku guda jirnay buugga maadada biology fasalka 12aad ee dugsiga sare. waxaan soo dhameynay cutubka afaraad oo aan kusoo baranay genetic material, walaxda hiddo-wadaha, and protein synthesis, samaysanka borotiinka. Genetic material waxaa loo yaqaanay DNA, and protein synthesis waxaa loo yaqaana RNA. markii lisku geeyna waxaa waaye DNA iyo RNA waa nucleic acid ee loo yaqaana. DNA waxaa laga soo gaabiyey deoxyribonucleic acid, RNA waxaa laga soo gaabiyey ribonucleic acid. markii lisku daran waxaa waaye nucleic acid ee loo yaqaana. nucleic acidiska wuxuu ka samaysan yahay ayaan soo sheegnay unit, waa qaab dhismeed oo unityo ah kaasoo loo yaqaano nucleotides. nucleotideskana waxaan kusoo sheegnay wuxuu ka samaysan yahay ayaan dhahnay qaab dhismeed oo asaasi ah oo ilaa iyo 3 oo ugu horeeyay 5 carbon sugar, phosphate group iyo nitrogen bases. DNA-da waxaa soo ixtiraacay ninkan loo yaqaano Mendel, oo nin Australian moog loo yaqaano oo Australian u dhashay waaye. sanadka markuu ahaa 1850 1857 waa la dhahaa. DNA-da marka si fiican ayaan uga soo hadalnay iyo RNA-da. markii DNA oo laga koobiyeynayo DNA kale waxaan kusoo sheegnay replication. markii processka dhacayo waxyaabo oo ayaa dhici kara oo qaladaad ama isbedel, oo isbedelkaas loo yaqaano mutation. waxaa waaye waxaan kusoo sheegnay waa isbedel joogto ah oo ka dhacayo walaxda hiddo-wadaha ee noolaha. waa DNA-da la bis. genetic material dal maqasho waxaa waa DNA. mutation waa a permanent change in the genetic material of an organism. walaxda isbedelka joogtada ah walaxda hiddo-wadaha oo noolaha ayaa waxaa loo yaqaana mutation. mutationiska ay wuxuu noqon karaa ayaan soo sheegnay idan aftirkeeda. mutation uu u gudbayo caruurta iyo mutation aan u gudbaynin caruurta. mutationka caruurta u gudbayo wuxuu ka dhacayaa germ cell mutation ama gamete cell mutation. waa unug tarameedyada haddii isbedelka ka jiro ilmaha way u gudbayaan. iyo somatic cell mutation waa isbedelka ka jira somaticska. waa 44 chromosomeska ayaa 46 ka koobnaa. 46da 44 waxaa waaye autosomal waa somatic, 2 waxaa waaye gamete cell waaye ama sex cell.
somatic silence mutation isbedelkaasi marka caruurta muu gudbayaan qofka ayuu ku ekaanaya oo keliya. waxaan soo sheegnay marka mutationka waa soo qaybinay laba ay soo qaybinay gene mutation isbedelka oo hiddo-wadaha oo sidoo kale point mutation loo yaqaanay iyo chromosomal mutation labadaas ayaa loo qaybinayo chromosomal mutation isbedelka chromosomeska. chromosomal mutation naftirkiisa waan soo qaybinay oo chromosomal structure waa isbedelka qaab dhismeedka chromosomeska in isbedelo waa chromosomal structure iyo chromosomal number tirada chromosomeska inay isbedelaan meesha 46 laga rabay waa 47 45 ay noqdaan tirada oo chromosomeska. waxaan kaloo soo baranay oo chapterkaas aan ku soo baranay waxa loo yaqaan protein synthesis. protein synthesis wuxuu ka bilaabanayay transcription waa DNA ayaa dib waxaa loo qoray RNA waxaa loo yaqaanaa transcription. marka DNA oo to RNA loo bedelayo waa transcription loo yaqaanaa. translation ayadana waxaa loo yaqaanaa RNA markii protein laga dhigayo waxaa loo yaqaanaa ayadana translation ayaa loo yaqaanaa. labadooda waxa waaye stage ay marayaan oo isku mid ah oo waxa loo yaqaanaa initiation bilaabasho, elongation dheeraansho iyo termination xirmid. RNA waan soo qaybinay waxaan soo qaybinay 3 messenger RNA, ribosomal RNA iyo transfer RNA ayaan soo qaybinay. marka chapterkaasi si wanaagsan ayaan u soo hadalnay dibna ugu laabtay insha Allah. waxaan u gudgalaynaa cutubka shanaad chapter 5 waxaan ku baranaynaa genetics hiddo barasho. chapter 5 waxaan ku baranaynaa hiddo barasho genetics. buuggeena si fiican muu hadlaayo horodhac ayaan ka sameeynaa. genetics maxaa lagu qeexaya qeex ayaa lagu dhigi karaa genetics. genetics is the study waa barashada waaye of inherited waa dhaxalka characteristics astaamaha of an organism ee noolaha and how they are sida how they are transmitted sida loo gudbinayo oo from one parent iyo ka imaanayaan marka oo waalidka to the next generation jiilka kala xiga ama caruurta la dhalayo. genetic maxaa waaye hidaha waa hiddo barasho waaye waa is the study of inherited waa barashada hidaha waa oo characteristics astaamaha of an organism ee noolaha and how they are sida oo transmitted loo gudbinayo from parent iyo ka imaanayaan waalidka to the next generation loona gudbinayo caruurta. waxaan qeexaynaa marka is the study of inherited characteristics of an organism and how they are transmitted from parent to the next generation. maxaa kale ku qeexi kartaa? waxaan kale ku qeexaynaa genetics is the study waa barashada of inheritance waa dhaxalka and iyo variation kala duwanaanshaha. okay variation maxaan ku qeexaynaa marka variation kala duwanaansho waa is the presence of difference kala duwanaanshaha haadir ku ah in sequence isku xigitaanka of genes ee hidisidaha oo between u dhaxeeya individual organisms ee noolayaasha shakhsiga ah. variation wuxuu noqonayaa si naftirkiis waan qeybinaynaa waa continue variation iyo discontinue variation. continue variation waxaa kala duwanaansho iska soconayo waa sida weight-ka ayaa ka mid ah culeyska oo amase height ayaa ka mid ah dhererka wax iska soconayo waa marka. discontinuous variation kala duwanaanshaha waa aan soconayn waayo laba le ay noqonayaan bis tusaale male iyo female. waxaa kaloo ka mid ah dad waxaa carabka laabi kara iyo dad aan laabi karin. dad waxaa waaye dhegaha dhaqdhaqaajin kara dad aan dhaqdhaqaajin karin.
dad suulkooda taagi karo, dad aan taagi karin. waa discontinue iyo continue. waxyaabaha kale oo buuggaasi oo si fiican uga hadlin waxaa ka mid chromosome is the maxaan qeexayna chromosome is the a long thing strand waa xarig dheer oo khafiif ah of genetic materials oo walxada hiddiwadaha oo fooni laga helayo in the nucleus bu'da. xarigga khafiifka oo dheer kaasoo walxada hiddiwadaha oo laga helayo bu'da ayaa waxaa loo yaqaanaa chromosome. chromosome naftirkiisa muxuu ka samaysan yahay marka chromosomeska wuxuu ka samaysan yahay is the made up of wuxuu ka samaysan yahay proteins and iyo DNA ayuu ka samaysan yahay organized waxaana kooxeeya into genes hidiside naasiga u kooxaysan yihiin marka into genes hiddiwada hidahaas ayaa kooxeeya ama controla. chromosomeska naftirkiisa wuxuu ka kooban yahay qaab dhismeed isku mid ah oo loo yaqaano sister chromatids kuwaasoo marka sister chromatids-kaasi waxaa isku haya ama waxaa isku geeya centromere. chromosomeska 46 chromosome ayuu ka kooban yahay. tusaale aadanaha humanska 46 chromosome 46daas waxay u socdaan marka virus lamaana ay u socdaan. lamaanayaasha marka waxaa waaye 46 chromosome autosomal cells ay loo yaqaanaa. laban waxaa loo yaqaanaa sex cell ayaa loo yaqaanaa. viruskaas waxaa sidoo kale loo yaqaanaa alleles ayaa loo yaqaanaa alleles. viruskaas maxaa loo yaqaanaa marka alleles. allele maxaa loo yaqaanaa marka allele ay waxay u dhacayaan marka lamaana ay u dhacayaan. waxaan qeexayna marka allele waa is the variant form of gene is the variant form of gene. maxaa marka qaabka kala duwan ee hiddiwadaha hidisidaha ay waxaa loo yaqaanaa allele loo yaqaanaa. alleleska sigan waa wuxuu ka kooban yahay labo ayuu noqon karaa oo midkood dominant allele iyo recessive allele. waa allele oo shiiqiya ah. dominant allele maxaa allele shiiqiya ah. oramise recessive allele shiiqsana ah. recessive baa marka shiiqsana ama la qariye. dominant maxaa waaye qariye. dominantka ayaa wuxuu noqon karaa sidoo kale ilaa iyo 3 complete dominant waa shiiqiye dhammaystiran. incomplete dominance shiiqiye aan dhammaystirnayn. co-dominant iyo shiiqiye soo wada muuqda. tusaalada aan ka wada bixin complete dominance shiiqiye dhammaystiran tusaale waxaa ka mid ah aaba dheer hooyo gaaban. ilmihii ay dhaleen waa wada gaabteen marka waa wada dheeraadeen aabihii wada raaceen. si toos ayaa marka kan hooyadii loo shiiqiyey. marka gaabniinta maxaa waaye marka waa recessive waa shiiqsane. dominantin maxaa tusaale dheer aabihii wuu dheeraa soomaan shiiqiye. waxaa la shiiqiyey marka hooyadii gaabneed ilmihii waxay wada raaceen marka aabihii. incomplete dominance waxaa waa shiiqiye aan dhammaystirnayn waa marka shiiqiyahaas tusaale waxaa ka mid ah hooyo cad aaba madow. ilmihii ay dhasheen marka ilmo oo waxay noqdeen marka oo maalin ah. marka kalarka labada kala waa kasoo muuqdaa marka kalarka madowga iyo kalarka cadaanka waa kasoo muuqda. co-dominance maxaa waaye labadaba ayaa soo wada muuqanaya marka labadaba ayaa oo shiiqiyaha labadaba soo wada muuqanaya. tusaale lo'da shaarshaarta ah madowga iyo cadaanka isku labsan yihiin. tusaale waxaa kaloo ka mid ah oo dhiigga blood groupska oo AB-ga aabadi dhiiggiisu yahay hooyadina dhiiggeeda ay tahay B
ilmihii dhalanaya marka waxaa a b ay wada noqonayaan. waa co-dominancy waay. inta aan ku guda jirno buuggaasi waxyaabaha kale aan ku arkayn waxaa waay gene. Gene waxaa waay is the smallest particle that chromosomes are made of. Waa is the smallest particle quruuraxa ugu yar waay that chromosomes iyo chromosomada are made of ay ka samaysiin waxaa loo yaqaana marka gene. Genome waxaa waaye idin waxaa loo yaqaanaa genome. erey kale aan arki doono waxaa waa genome is the total wadarta guud ahaan is the total wadarta guud ahaaneed oo genetic contents uu ka weyn hido wadaha in each cell ee unug kasta of an organism ee noolaha ayaa waxaa loo yaqaanaa marka genome loo yaqaanaa. tusaale genome waxaa wadarta guud ahaaneed marka aan waxaa waaye 46 chromosomes humans tusaale waaye. gene wuxuu noqon karaa marka 23 ayuu noqon karaa oo hooyada keensanaysa 23 oo aabaha keensanaya noqon karaa. laakiin genome waxaa waay guud ahaaneed marka la soo aruuriyo waay oo genetic contents uu ka samaysan yahay oo dhammaan la soo aruuriyo ay genome loo yaqaanaa. inta aan ku guda jirno buuggeena oo ereyada kale oo nagu soo laalaaban karo waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaana xiriirka ka dhexeeya genotype iyo phenotype. waay genotype waxaa u naqaana marka hiddo-sheeg. genotype maxaa u naqaanaa hiddo-sheeg. waa is the genetic make up of organism. waxaa uu ka samaysan hiddo-wadaha ay noolaha ay waxaa loo yaqaana marka genotype is the genetic make up of organism. waxyaabaha hiddo-wadaha uu ka samaysan yahay noolaha waxaa loo yaqaana marka genotype. phenotype-na maxaa waa marka waa is the physical appearance waa iyada physical appearance of organism. muuqaal duleedka ee noolaha waxaa loo yaqaanaa marka phenotype. waxyaabaha aad ishaada arki karto maxaa marka waa phenotype waa muuqsheeg. waxyaabaha ishaada aan arki karin oo u qarsoon noolahan maxaa waa marka hiddo-sheeg waa genotype. waxyaabaha kale aan arki karin waxaa waaye farqiga u dhexeeya marka homozygous iyo heterozygous. homo waxaa waaye is an organism waxaa noole whose genotype hiddo-sheegooda consist of wuxuu kooban yahay 2 identical allele. 2 allele oo isku mid ah. haddii laakiin alleliska uu kala duwan maxaa waaye heterozygous waay is an organism waxaa noole waaye heterozygous maxaa is an organism waa noole whose genotype hiddo-sheegooda consist of wuxuu kooban yahay 2 different alleles. 2 allele oo kala duwan ayuu ka kooban yahay. waxyaaba kale aan ku arkayno waxaa waaye mono hybrid cross ayaa ka mid ah oo in waxaa is cross waa talaal oo which waa talaal waaye ama isku talow oo in which only one character oo kuwaasoo marka hal astaan ah oo is taracted oo haddana la daba joogo oo dihybrid ayaa jirta trihybrid waxyaabahaasa jira marka dihybrid maxaa monohybrid tusaale qaada marka dihybrid maxaa waa laba waay marka laba astaan diaptrina 3 tetra 4 4 5 benta hybrid. okay marka kuwaasi waxay ahaayeen jabtarka 5aad horodhiciisa ahaayeen. marka insha Allah halkaas ayaan ku ekeenayaa jabtarka ayaan toos u galeynaa hadduu ilaahay idmo insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.